بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسر دمانتين بصاحب يالكسر وهذا ورركي قدام بيا عالم كجارهان دقالك كسعنا جقبل كبريق الدحية ورر عجيبة وكسر كردية إنه سوق عندنا وحنا كمدا مدحنا ودك بريكا كدونالد ترامب وفرين أذك وهنجبات أدرى إمام الحكومة إسرائيل هذا ما حيسكو خلاف سيه دونالد ترامب يبيع من التناه برامجك يتكو داود دولة ودن كيران ومركلة قادمت كم دوار رذي وقوع السلا وما حيجن تلا عصب حد دولة ودن كيران الدقالك سوق جلسي إنك بدن لبض الضباط كده برامجك أيات كده داود تاني مدحوين الدوهن دونالد ترامب ويسقون الدح فدية متكمل فضحته وجوهما ولا كل من مدحوين أمريكان محيط فضحته برامجك كده داود تنادي الله كديه إيران أو يظن القلبات يكون نقطة لف لونج شيء أو لنا أسعون هذا كل ما دقدقه وكسعون أيام مجالات اللي يراد بروسلس أيام برامجك وسق قادم تنادي الله كديه تولد الشيناه وسجس جس والله هذا الشيء مدحوينها ودك أمريكا كدونالد ترامب كجذا عدسي كي من مدحوين دونالد ترامب codsigaasi muxuu ahaa barnaamijka ku daawad doontaan hadii alla ka dhigo saaxiibada uu soo dhawaada aad aad badu mahadsantihiin waxa idin ku dhiirigelinaya hadii ay tahay markii kugu horeysay oo kanaalkana soo boqoto subscribe si la wadaag saaxiibada muuqaalka aragtidaada ka dhiibo hadii aad ka mid tahay saaxiibada hore inoo la joogeen shirgaray muuqaalka oo like tasaar aad badu mahadsantihiin soo dhawaada dhamaantiin waxaag siday warinayso jariirada la yiraahdo New York Times madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa fariin digniin u diray madaxweynaha ee markaas maamulka gumeystaha Israa'iil waxaan u sheegay inay ka waatoodo goobaha shidaalka ku yaala magaalada Tehran ee ay duqimaha roobta kaga dhigtay maamulka gumeystuhu madaxweynaha Donald Trump ayaa yiri tilaabooyinka aad qaadaysaan oo ah inaad duqeysaan goobaha shidaalka arintaas idinkuna idima roona weerarada Iran idinku soo qaaddoon waxay noqon doonaan kuwa idan ka soo waaqsan karin sidaas daraadeed waxaan ku boorinayaa Israa'iil inay joojiso markaas weerarada ay ku بدايسو حرمها الشدالك الدولة ودن كيران لكن سيد الجريدة إسلا نيويورك تايمز يتبينيسو ماملكو قميستوها يا أرين تاسر دقاها كفوريستي وحين الدور مرتقيا مركزي حامها الشدالك مركزي كويا لما قال ذا الطهران عاصمة ودن كيران إنكسو دولة ودن كيران مرد بضن أرين تاسر كدكتي وحنا الشيكتي عواقب كأرين تاسر كردشا إن أي مركزي يكون قبل دونا ودن بضن أو كويا قبل كبريكا دحيب ولكن أرين تمركي على كدب مركي يقول رئيس يدنا ترى لما مرة يلا الدقية garoonka magaalada Dubai ee markaas isu tag Imaaraadka Carabta iyo goobaha shidaalka ee doona la yiraahdo Al-Furujah la yiraahdo ee markaas ku taal isu tag Imaaraadka Carabta dawladda wadanka Iran ilaa iyo hadda talaabo adag oo dhinaca maamulka gumeystaha oo kalmaha shidaalka iyo goobaha marka batroolka ma qaadin laakiin waxay wacd ku martay in ay samir u yeelo doonto oo ay garanayso waxyaabaha dhibaatada ka dhalan kara hadii la duqeeyo goobaha shidaalka laakiin se hadii ay ka waantobi waayeen maamulka gumeystuhu iyaguna ay qaadi doonaan falcelin qadar oo aan Israa'iil u adkeysan doonin wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran Abbas Araji ayaa isaguna sheegay inay kaga digayaan duqimaha ay ku qaadayaan maamulka gumeystuhu goobaha rayidka ee shidaalka oo hadii wax iska dhicinayaan ay tahay si dhab ah inay u wajahaan militariga dawladda wadanka Iran hadii kale ay gacmaha taagan oo isdhiibaan laakiin ay iska daayaan inay duqayaan goobaha dadweynaha rayidka maxay yeelay buu yiri inta badan waxay sheeganayaan buu yiri inay taageeraan ama ay u gargaarayaan shacabka wadanka Iran hadii ay taasi ay dhab tahay maxay u duqeynayaan ayuu yiri goobaha rayidka wax ma iska dhiciyaan laakiin dhinaca kale waxa la leeyahay qaraar iyo culeys iyo guul darro culus ayaa arintan ay ku keenaysa maamulka gumeystuhu waxaana la werinayaa mid kamid ah khiyaamooyinka ugu xuma inay dul dhigeen madaxweynaha Donald Trump kulankii ugu dambeeyay Donald Trump iyo dhexmara Benjamin Netanyahu ee Mareykanka ka dhacay ayaa la werinayaa in markaas khidad been ah uu la wadaagay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu madaxweyne Donald Trump kuna yiri hadii aynu dilno odayga shacabka ayaa barnaamijka isugu soo baxaya guushana si fudud ayaan ku gaari karnaa ma doonayno inaan dagaalka dib u dhigne iska daayo yiri fulinimada ee dagaalka igu garab istaag laakiin taasi dhinaceeda markii dagaalka la qaadayna wax arintaasi ka duwan ayaa dhacay marka waxa la leeyahay labada dhinac khilaaf ayaa u dhaxay oo Mareykankuna wuxuu leeyahay war in kastoo horta qaar kamid ah khibradu ay leeyihiin dagaal in kastoo uu socdo oo labada dhinac feeraha la iska jibinayo haddana waxa socod ayaa leh wada hadallo hoose oo markaas ku saabsan bal wuxuu in la haro maadaama dagaalku dhamaan doono waxaana la werinayaa Mareykanka ninka wada hadallada ugu qaabilsan Donald Trump gaar ahaan ergeyga gobolka bariga dhexe ee Witkoff ama Stephen Witkoff leeyahay ayaa werinaya Donald Trump una caqli celinaya in la duqeynin goobaha shidaalka dawladda wadanka Iran dagaalku waa uu dhamaan doonaa inaguna ceeb iyo fadeexad ayaynu ka dhexli doonaa markii dagaalku uu dhamaadana wax badan ayaa la isweydiin doonaa ayuu marka maadaama aan dawladdu weynahay waxba qaar inaan ka gaabsano ayaa fiican waxa soo isweydiiyay in dawladda wadanka Mareykanka marka hore ay dagaal kula jirto nidaamka iyo in markaas kaabayaasha wadanka ay dhaqaalaha ee dalka Iran iyo shacabka ay dagaal kula jirto hadii aan maamulka dagaal kula jirno sababtan u duqeynana waa maxay ayuu yiri kaalin shidaal iyo waxyaabo kale ee la midka marka arintaas waxa la leeyahay meel qaraar ayay maraysaa Israa'iil la duqeymihi ayay sii wadaa laakiin aan eegno goor dhow weerar culus oo ay qaadeen ciidanka ilaalada kacaanka wadanka Iran
ilaalada kacaanka wadanka Iiraan ayaa maanta qaaday weerarkii 50aad uguna cuslaa sida la leeyahay mar kaliya ayaa telefishinka dawladda wadanka Iiraan waxa ka soo muuqday dhowr iyo 10 gantaal oo aan isu kalar ahayn oo dhamaantood mid gooni oo qaabilsan yahay daqiiqad kadibna sida qaar ka mid ah muuqaal laga soo dubay ka muuqanaysa dhulka xoog lagu haysto burbur halaag lagu tilmaamay ayaa ka dhacay meelaha sida ba'an u burburtay waxa ka mid ah welina Iiraan ay duqeynayso xaafadda la yiraahdo Tel Aviv al-Kubra iyo meel bariga garoonka Ben Gurion ku taala waxaana la arkayaa 10 kiiloomitir ku dhaw dhamaantood dakum ay ka dhigeen ciidanka ilaalada kacaanka wadanka Iiraan gantalada la isticmaalay mar kale waxa kamid ah baa la leeyahay dulfiqaar gantalka la yiraahdo iyo sijiil iyo fatax labo gantaladaas oo dawladda wadanka Iiraan wali aan isticmaalin inta badan kharmasheer 4 oo noqday mid kamid ah waxba Israa'iil dhulka wadnaha ugu dhigay ayay isticmaalaysaa laakiin hadda gantaladaas oo dhamaantood guuxooda ka dheeraya mid walbana oo musiibadiisa leeyahay hatta dhamaantood waxa la wariyaa in iyaguna ay madaxyo tir badan wataan marka waa iska daysay baa la leeyahay maamulka gumeysto hadda inay isku daydo ka hortagga gantaladaas maxaa yeelay ilaa iyo 8 dabaq ayaa laga difaacaya dhinaca gumeystuhu haddana waxba uma taran Mareykanku uu difaacaya reer galbeedka Faransiiska isku dar macal NATO ayaa difaacaysa haddana dhinaca kale gantalada dawladda wadanka Iiraan dhankeeda ka yimaada sidii roobka ayay ugu daadanayaan dhulka xoog lagu haysto marka arintaas waa saatan kale sida war degdeg oo ku qoran telefishinka Al-Arabiya uu qorayna maamulka gumeystaha Israa'iil ayaa sheeka cajiib idinka haya waxay ku leeyihiin 450,000 oo askari ayaan u yeeranay si aan weerar lugta uga qaadno gudaha wadanka Lebanon waa su'aal horta marka ugu horeysa ciidanka maamulka hadda ma dhan yahay 450,000 oo askari oo dib hawada u soo gali karaan dabcan dagaalkii ugu cuslaa ee Israa'iil gasho wuxuu ahaa kii ay ku gashay magaalada Gaza 2023 laga soo bilaabo ilaa iyo dhamaadkii 2025 marka xilligaas ayay weeday boo ciidankii ugu badnaa oo waliba aan mar ay tahay markii ugu horeyso dagaal gasho ayaa la weeray inay isku keentay 450,000 askari laakiin kuwaasna dhamaantoodna magaalada Gaza lagu diitay kuwana weerarkii dagaalka Lebanon ay ku qaaday ayay ku ba'een oo hadda ciidanka ahaasid iska daaxitaa 100,000 askari ma dhama ayaa la leeyahay ciidamada ayaa iyaguna kala dhuumanaya oo kii dagaalka looga yeeraa cudurdaar iyo xanuun beena ayuu sheeganaya xaaladda gudaha marka dhulka la haysto ka jirtana waxa la wariyaa inay tahay mid kamid ah xaaladihii ugu xumaa burbur aan la daawan karin iyo khasaaro culus ayaa dhacay sida waaxda ambalaaska maamulka gumeysto ay warinayaan 142 qof in ka badan oo dhaawaca ayay qaadeen hadda la socdo maamulka gumeystuhuna hadduu isagu 140 sheegtaa tirada waa 3 jabaar oo waa 300 oo qof in ka badan weeye marka xaaladaas ayay xaalku maraya barley marka xaalku waa adag tahay oo way adag tahay xaaladu gantalada dawladda wadanka Iiraan waxay noqdeen kuwa waxay doonaan ka fala markaas magaalooyinka waaweyn hadda wali waxa si yaab leh loo duqeynayo xuduudda Masar meel u dhow Saxara Naqab ay kamid tahay ilaa iyo magaalada Qudus iyo Tel Aviv iyo Haifa iyo Rashash iyo waxa lagu leeyahay magaalooyinkaas oo dhan waxay macmiil u noqdeen gantalada markaas ee dawladda wadanka Iiraan waa mid kamid ah niyad jabka iyo khasaarihii ugu cusla oo maamulka dhexmara waa aniga idin la wadaagay dhinaca dhaqaalahan maalintii kaliya waxa ku baxda in ka badan 1 bilyan oo dollar marka laga hadlayo dawladda wadanka Mareykanka iyo maamulka gumeystaha ee markaas weerarka ay ku qaadeen gudaha wadanka Iiraan waxaag dhinaca kale hadii aan u nimaadna madaxweyne Donald Trump ayaa isaguna dhex fadhiya mid kamid ah fadeexadihii ugu xumaa ee taariikhda soo mara madaxweynaha Ameerikaana waxaan arintan ay noqonaysaa ka gadaal markii wadamada reer galbeedka intooda badan uu ka codsaday in laga caawiyo dagaalka markaas wadanka Iiraan uu ku qaaday waliba waxa uu yiri waxaan idin ka codsanayaa inaad ila furtaan buu yiri gacanka Hormuz laakiin afhayeen sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka gaar ahaan dawladda wadanka Iiraan oo hadleen waxa uu sheegay gacanka Hormuz inuusan xirnayn hasa ahaatee ilaalada kacaanku ay markaas maraakiib gaar ah oo iyagu ay garaysanayaan oo kaliya u diideen laakiin waxa uu leeyahay mixirna macabarkaas laakiin ceebta madaxweyne Donald Trump ku dhacday ayaa waxay tahay dhammaan wadamadii reer galbeedka oo beri hore u danaanin jir ayaa hadda ka sii turkaya mesela ra'iisul wasaaraha maamulka UK ama dawladda UK Keir Starmer ayaa sheegay inuusan qorsheynin xitaa iska daa wax kale inuu maraakiib dagaal u diro wadanka Mareykanka dagaalku markaas ku hayo dawladda wadanka Iiraan wuxuu yiri diyaar uma nihin buuri kamana fikirayno inaan maraakiibtan u dirno buuri gobolka bariga dhexe dagaalkuna hadda ma rabno inaan si toos ah uga qayb qaadano ayuu yiri ra'iisul wasaaraha wadanka Ingiriiska Keir Starmer dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha wadanka Jarmalka oo isaguna goor u hadlay ayaa sheegay in guud ahaan uu gaashaanka u dururay codsiga ka yimid madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump kaas oo ku saabsan markaas in dawladda wadanka Jarmalka ay dagaalka ka soo qayb gasho wuxuu yiri baahi uma qabno ayuu leeyahay dagaal hadda aan ku qaadno dawladda wadanka Iiraan reer galbeedka laakiin waxa la leeyahay
inkastoo dhammaantood ay diidayaan waxay u diidayaan ma aha in xuquuqul insaan iyo xeerarka caalamiga ay ixtiraamayaan laakiin dowladda Iiraan ayaa waxay noqotay beelalaha geed culus oo aanay gudin lagu gooyi karin sidaas daraadeed marka cid walba waxay eebaweyne ka magan galaysaa diyaaradaha droniska dowladda wadanka Iiraan gantalada guuxooda ka dheeraya iyo bartilmaameedyada markaasi ama xulafadoodu ay ku leeyihiin gobolka bariga dhexe ama xitaa safaaradahooda iyo diblomaasiyintooda iyo ciidamadooda jooga gobolka bariga dhexe ayay u baqayaan inkastoo qaar ka mid ah xitaa muxalliliintu ay leeyihiin dowladda wadanka Iiraan waa awooda xitaa Jarmalka inay duqeyso marka sidaas daraadeed wadamada reer galbeedka dib ayay u baxayaan kulan degdeg ah oo hadda ka soconaya magaalada Brussels la yiraahdo ee caasimada ururka midowga Yurubna waxay ka shirayaan dowladda wadanka Iiraan markaasi xanibaad ay dul dhigtay maraakiibta reer galbeedka ee maraysa gacanka Hormuz ilaah ku daayo wax walba waxa kaga sii daran maraakiibta reer galbeedka marka laga soo tago waliba isbir xitaa kuma jirto sida la weerano ee waa Jarmalka adigu waa dowladahan wadanka Mareykanka ku xiran sidaas daraadeed marka waxay hadda ka fikirayaan baa la leeyahay inay kaga jawaabaan iyagana cunaqabateen la dul dhigo dowladda wadanka Iiraan cunaqabateen maxay ka tartaa 740 sano ayay dhammaantood wadamada reer galbeedka cunaqabateen ku hayeen dhinaca kale marka cunaqabateenta waxa la leeyahay waxay rabaan in dowladda wadanka Iiraan arrinta ka soo hadasho oo iyaguna maraakiibtooda loo fasaxo dhinaca kale dowladda wadanka Hindiya sida telefishinka RT la yiraahdo ee laga leeyahay wadanka Ruushka uu warinayo Hindiya waxay doonaysaa in si toos ah wada hadal ay ula furto dowladda wadanka Iiraan si loo sii daayo maraakiibteeda shidaalka ee markaasi sida ay ku xayiran gacanka Hormuz Iiraan iyo dowladda wadanka Hindiya waxay ku wada jiraan ururka la yiraahdo BRICS oo hadda dunidu ay ku qulqulayso waana mid kamid ah goobaha sida rasmiga ah looga dhuunto cunaqabateynta iyo ciqaabta lagu daray fiduush qaldan ee reer galbeedka ee wadamada caalamka ay ku hayaan waana ururka kaliya ee suurtagal ah xitaa inuu bedelo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysada maanta taagan marka xaaladaas halkaas ay marayso ururka midowga Yurub iyaguna wadnaha ay farta ku hayaan marka alayta xal marka waxa leeyahay madaxweyne Donald Trump marka mar labaad ayuu ka codsanayaa baa la leeyahay in arintani ay musiibo ku noqotay oo uu markaas ay diideen dhammaan wadamadii codsiga u dursaday wasiirka tamarta dowladda wadanka Mareykanka ayaa isaguna wuxuu leeyahay waa in si degdeg ah u kulmaan buu yiri madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump iyo sidoo kale hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping dib u dhac kasta buu yiri oo ku yimaado kulanka labada madaxweyne waxay dhibaato ku noqon tabiri nabadda caalamka Donald Trump ayaa isku diyaarinaya inuu safar ku tago wadanka Shiinaha waxaana uu leeyahay marka labada hogaamiye inay si wanaagsan ugu wada hadlaan dabcan Iiraan marka laga hadlayo wadanka Shiinuhu waa mid kamid ah saaxiibada ugu muhiimsan Ruushka ma qariyo Shiinaha ma qariyo dowladda wadanka Iiraan ma qariso marka waxa la isweydiinaya kaalmada weer lagu qaado wadanka Iiraan ee uu Donald Trump kaga dalbanayo wadanka Shiinaha marka arintaas laftirkeeda waxay noqotay beelalaha fadaxad mucjisa ah Donald Trump hadda caafimaadkiisa ayay inta badan madaxda caalamka wax weyn iska weydiinayeen oo waxa la leeyahay ninku nin caadiya ma aha dhinaca kale hadii aynu eegnana madaxweynaha wadanka Shiinaha oo dhawaantan uu Donald Trump codsi u gudbiyay ayaa isaguna wuxuu leeyahay oo ku saabsan inuu bal dagaalkan dhex galo oo Iiraan uu qanciyo laakiin hase ahaatee madaxweynaha wadanka Shiinaha Xi Jinping ayaa ku jeesay madaxweynaha Donald Trump wuxuu ku leeyahay bal waan isku dayi doonaa dagaalkaas inaan joojiyo inaan xaaladaas wax ka qabto maxaa yeelay waan isku dayi doonaa macnaheedu waxay tahay waan iska dhaafi karaa sida iyo muuqato marka dowladda wadanka Mareykanka ee Shiinuhu hadii istiraatiijiyad fulineysana waxay marka ugu horeysa ka hadlaysaa Mareykanku inay tahay inuu ka soo garbaxo iyadoo qaanuunka caalamiga ee la raacayo markaas dowladda wadanka Iiraan wadan ayaad weerartay oo madax banaan oo heshiisyada jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo adigu aad sameysay ayaad ku xadgudubtay marka waa inaad Iiraan magdhow siisaa ballanqaad weliga inaad weerar doonin waa inaad miiska keentaa sidoo kale tana waa inaad marka waxa la shuruudo tiro badan oo dowladda wadanka Iiraan ay soo gudbisay oo in adag tahay in dowladda wadanka Mareykanka ay qaadato laakiin marka maalin kasta aad $1 bilyan oo dollar dagaal ku bixinayso intee buu dagaalkaasi socon karaa Iiraan waxa la leeyahay ilaa muddo sanad ayay qorshaysay weeraradaas inay wado halkii la rabay 2 toddobaad in ka badan oo dagaalka soconaya dowladda wadanka Iiraan inay naxiifto oo markaas weeraradeedu hoos u dhacaan waaba si kordhin oo hadda gantaalo cusub ayaaba saaxadda dagaalka la soo galiyay marka xaaladdu way adag tahay marka ka dambaysa Iiraaniyiintu waana ka niyad adag sida la leeyahay Israa'iil xaalad lagu tilmaamay musiibo ay iyadana dhexda ugu jirta marka wararkani wixii ku soo kordhay waan arki doonaa laakiin guud ahaan caalamka waxaad moodaysaa dhaqaaq culus inuu ka socdo Mareykanka oo kaligii isagii Israa'iil dagaalka ay ku hardamayeen waxaana laga yaabaa sida la leeyahay in ka soo Donald Trump uu leeyahay xiriirka inaga dhaxaya aniga iyo Netanyahu aad ayuu u sareeyaa haddana warkaasi warka warbaahinta ayaa la leeyahay oo muran tiro badan ayaa ka jira gudaha wadanka Mareykanka waliba xisbiga jamhuuriga ayaa xataa ku talinaya ka hor intaan doorashada dhexe la gaarin si degdeg ah in dagaalka Iiraan loo soo gabagabeeyo haddii kale waxaynu ku noqon doonaa kuraasta iyo talada wadanka Mareykanka kuwa marti ka noqdo wayn adkaan doontaa inaan kursiga dib ugu soo laabano marka warar iyo bogtira badan ayaa ka jira gudaha wadanka Mareykanka waan isla wadaagi doonaa wararkan iyo wixii ku soo kordhay saaxiibadayow aad baad u mahadsantihiin ilaa weyn dawashada muuqaalka ina shar garaytaan commentiga sanaad ka bixisaan aragtidana aad ka dhiibataan follow iyo subscribe waxaan alla dhacdana dib intaan kulma doono nabadgelyo